maanta waa maalin aad iyo aad u xanuun badan oo qarax weyn dhacay oo dhaawac iyo meydad fara badanna isbitaalka ay soo gaareen iyadoo dhibkaas jiro waxaa noo yimid isagoo ka danqanayo dhibka ka dhacday gudoomiyaha gobolka Cumar Finish oo ay la socoto gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma gudoomiye waan aragnay wixii dhaawac dhacay dhibaatada waddanka haysato dhaawacyada maanta la keenay qaar badanaa waxay u badnaayeen dhaawac fudud intii kale waan seexinay ilaa hadda waxaa noo jiifto tiro 35 ah laakiin dhaawaca guud ahaan waxay ahaayeen 52 intii kale waa baxeen markii dhaawacyadooda fudud loo dhayay waxaan rajaynaynaa dhaawaca hadda noo jiifo isbitaalka kartidiisa caafimaad waa ka adag yahay inuu daaweeyo nasiib waxaa mataqaanaa inaysan jirin bukaanno oo hadda aan isleenahay kama adkeedin dibadda ha loo qaado ma ku jiraan waa bukaanno aan wada daaweyn karno howl fiican aan rabnaa inaan u qabanno bukaannadaasitood oo dhibaatada weyn ay ku dhacday oo haddana u badan arday jaamacad dhiganayso maaragtay badidooda jaamacadda banaadir ahayn arday ah oo darsi u socotay oo meesha dhibkaas ku qabsado qaraxaas qaarkoodna ay laadeen oo dhinteen marka ilaahay waxaan rajaynaynaa dhibabkaanito in ilaahay naga yareeyo